Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada dhammaantiinaba channelka. Magacaygu waa Mustafa, halkaana waa la socod dunida cusub. Waxaan halkan ka gelaynaa koorsada lagu baranayo luqadda Ingiriiska. Waana videogii labaad koorsada ugu magac darnay ku fahan luqadda Ingiriiska 60 maalmood. Maanta waxaan baranaynaa wax la dhaho demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun maxaa weeye demonstrative? Ereyga demonstrate waxaa weeye to show or in wax dad la tuso. Maadaama koorsada ay barbilow tahay, erey walba af Soomaaligiisa iyo dhawaaqiisa iyo qaabka habkicintiisaba xoog ayaan saari doonaa. Oo haddii mar kale uu soo noqdo si uu u noqdo wax kol hore aan baranaybo. Demonstrate waa tusid. Demonstrative pronouns waxaa weeye demonstrative pronoun words waa erayo that show kaasoo that point farta ku fiiqa mise ku tusa to a person shakhsi buu ku tusi, place meel buu ku tusi, or thing mise shay buu ku tusaya. Bal muxuu yahay waan aragno. This waa hal shay. This wuxuu isticmaalaa is asagoo wax kale isticmaalana waa jiraan, laakiinse waxaan dhiganaynaa asagoo is qaato. Istaas waxay ku tusaysaa shayga inuu markaa dhacayo oo hal yahay. Marka this kan is buu qaadanayaa. Maxaa laga wadaa marka? This one halkoo shay weeye. One thing hal shay weeye. Near ku dhow. Near ereyga near waxaa weeye dhow. You adiga. You shakhsiga hadalka ku hor jooga mise shakhsiga aad la hadlayso baa loo isticmaalaa luqadda Ingiriiska you. This kan tusaale lagu siinaya markaa. This kan is waxaa weeye my phone, kani waa telefoonkayga. This is my phone, kani waa telefoonkayga. Ereyga labaad oo demonstrative pronoun-ka waxaa weeye that. Waa hal shay asna ka fog. Hal shay asna ka fog. Marba haddii uu hal yahay waxaa la isticmaalayaa is. Marka waxaa weeye one thing waa hal shay. Far from you adiga ka fog. Far waa xarafkan far fogaansho weeye fogaansho. One thing hal shay. Far from you adiga ka fog. That is my house. That kaas is my house waa gurigayga. Ereyga saddexaad aan u gelayn waxaa weeye this waa la dheeraynayaa. This kuwan waa dhowr xabo oo adiga kuu dhow. This kuwan baa la siinayaa marka iyaga. Wixii plural aadasaan siinaynaa. Plural waxaan ka wadaa wixii jamaca. These are more than waxay ka badan yihiin one thing hal shay bay ka badan yihiin. Kuwa hore waxaan soo dhahaynay one thing hal shay weeye soo maahayn. More than waxay ka badan yihiin. More waa badan. Than one thing hal shay bay ka badan yihiin. Dhowrkaa shayna near you adiga ayay kuu dhow yihiin. Ayagoo tusaale example la gelinayo soo fiiri. These are my books. Kuwan waa buugaagtaydii. These kuwan are my books waa buugaagtaydii. Ereyga afraad oo ugu dambeeya waxaa weeye those. Those waxaa laga wadaa those wuxuu qaadanayaa more than waa wax ka badan weeye one thing hal shay wax ka badan. More than one thing hal shay wixii ka bataa waxaa la dhahayaa those oo na ka fog. Far from you shayga waa hal wax ka badan waa na ka fog yahay. Haddii hal buug wax ka badan mise laba buug meel fog ay yaalaan those baad isticmaalaysaa. Tusaalihiisa aan fiirino. Those kuwaasi are my friends waa saaxiibaday. Those kuwaasi are my friends waa saaxiibaday. Waxaan u sii gelaynaa sentence kale. This kan is my pen, kani waa qalinkayga. This kan is my pen, qalinkayga. That kaas is your bag waa baagaagi. That kaas is your bag waa baagaagi. Those kuwaas these aan dhahay. These kuwan are my books waa buugaagtaydii. Those kuwaas are our chairs waa kuraasyo. Ereyada chair iyo book iyo bag iyo haday nagu soo noqdaan aan garan weynin. Erayadan haddaad taqaanay waaba mar kale ku celinaynaa. Shayga mar haddaad baratay oo marka lagugu soo celinayo wax dhibaato ah lama kulmaysid. Inaad fahanto mooshiyo mise siyaabo kale inaad u fahanto mooyaane. Haddiise ay kugu cusub yihiin ambaliyo mar kale waad baratay maanta. Sidaas ayaad ku baratay. Maanta laga bilaabo tusaalooyinkooda iyo waxaad xoojisaa
practice-kooda shay marka hadda lagu baro inaad isticmaalkiisa hadda dhaqan gelisaa wanaagsan. This can is delicious. Delicious waxa weeye macaan badan. Delicious waa macaan badan yihiin. waa hal shay uu maybe gacanta ku hayo mise agtiisa yaalo wuxuu isticmaalayaa marka this can is delicious waa macaan badan yihiin. 6 baan aadeena that kuwaas belongs waxaa leh to cali baa leh. hadda sidii caadiga ma raacsano is iyo midna ma raacsano qaabku ku noqday waan arki doonaa iyo tansi inuu bedelay waan arki doonaa. Those kuwaas are very heavy aad ay u culus yihiin martido. Those kuwa are very aad way heavy ay u culus yihiin. Those kuwaasi are my friends waa saaxiibaday. Those kuwaasi waa naga fog yihiin waxa weeye my friends saaxiibaday. This can is easy waa wax fudud. Easy waa fudayd. Those kuwaasi are beautiful waa qurux badan yihiin. Beautiful no laha waa British accent, American accent. Beautiful waa qurxoon yihiin. Those kuwaasi are beautiful waa qurxoon yihiin. waxaan u gelaynaa negative waxa la negative-ka waxa weeye diidmo waa erayadaas jumladiyo toosan baan waxaan gelinaynaa diidan yar wax la diidayo. This can is waan garanaynaa this waa hal shay oo noo dhow. One thing near us or near you waa hal shay oo adiga kuu dhow. jumlada waa fasiri kartaa dabcan waa tii xag aan ku soo marnay. This can is my book waan ku soo marnay. Kani waa buugayga soo maaha. This can is not ereyga not waa diidmo waa erey keena diidmo ma yeelin ma seexan ma socon wax ma dhigan ereyga keena weeye not diidmo. This can is my book kani waa buugayga. That has is not your bag kasi bagaaga maaha. marka hore that is your bag soo mahayn. That waa hal shay oo kaa dheer maadaama uu hal yahay isbaan siinana. That has is your bag waa adiga baagaagi. These kuwaas are my shoes waa kabahaygi. These kuwa are not not waa diidmo. My shoes kuwaasi kabahaygi maaha. Those kuwaasi are not your chairs maaha kuraastaadii. This can is not correct kani ma saxno. That has is not mine aniga malihi. These kuwan are not expensive qaali maaha. not haddii laga saaro waxay noqonaysaa kuwaasi waa qaali waa dhowr shay oo ku dhow kuwani waa qaali. Those kuwaasi are not my friends kuwaasi saaxiibaday maaha. Those waa kuwaas baan raacinayna. notna waa erey diidma keento kanna waa erey lahaansho keena saaxiibada inay adi saaxiibada yihiin ayuu sheegaya. marka my waa ruux hadlaya ayaa leh. My friends kuwa saaxiibaday maaha. This can is not maaha easy mid fudud kani mid fudud maaha. Those kuwaasi are not ready kuwaasi diyaar maaha. ayagoo waxaan u gelinaa interrogative ayagoo waxaan su'aalaha isla kuwii xageerta aan ku soo maraynay wuxuu ahaa this is your book kani buugaagii buu ahaa soo maaha. this is buu qaadanayay soo maaha. hadday soo hormarto ruuxa aad la hadlayso su'aal baad weydiinaysaa saas ayaad su'aal ku weydiinaysaa. haddii laakiin this amba that amba this midkood hadduu asaga soo hormaro oo amba aad daba dhigto waxaa weeye ruuxa waxba u sheegaysaa. marka this maadaama qaadanayso isteedina la soo hormariyay taasi waxay ku tusaysaa in maaragtay aad ruux wax weydiinayso. Is this your book kani ma buugaagiba. Is this your book kani ma buugaagiba. This is your bag. Is that your bag kani ma baagaagiba. Is that your bag kani ma baagaagiba. Are these your shoes kuwan dhorkan shay oo agteeda yaalo. Are your shoes kabahaagi miya. These are those kuwaasi your chair kuwaasi halka yaalo ma kuraasahagiba. Is this kani
correct ma saxan yihiin. Is this correct? Shaygan ma saxan yihiin. Marka wuxuu ahaa this is correct. This ta soo horeysa ista lagu xijinaya soo maaha. Maadaama had isti soo hormartay this ay daba dhacday. Waxay noqonaysaa su'aal is this correct? Ereygan waxa ma saxan yihiin. Is this kani correct ma saxan yahay? Waxa la raacinayaa question mark. Waxaan godgodan oo calaamad u dambaysa waa su'aal. Is that kaasi yours? Waxa qiimiya. Is that yours? Kaasi waxa qiimiya. Are these kuwani expensive qaali miya? Kuwan ma qaaliba? Are those your friend? Kuwaasi saaxiibada miya? Are those kuwaasi your friend? Saaxiibada miya? Is this easy? Waxaan fudeed miya? Is this kani easy? Fudeed miya? Are those ready? Are those ready? Are those kuwaasi ready? Diyaar ma yihiin? aad iyo aad u mahadsantiin. Haddii halkan aad nala soo gaadheen, halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Haddii wax yar tala aan raaciyo, waxaan jeclaan lahaa inaad soo qaadataan buugaag oo shayaasha xarfaha sida isku bedelaan iyo maaragtay ereyada kugu cusub haddii aad bilow tahay. Waxyaabaha cusub inaad qalin iyo intaad soo qaadato meel ku qortid si hadhow dambe casharada soo socdo haddii aan ku celino ay maaragtay kugu noqdaan shay aad hore u soo martay. Marka waxaan aad u jeedo waa alifbeetada videogeeni koodaan ku soo barnay shaqal iyo shubano weeyo la isku keenay qaabka la iskugu dhajiyay iyo sida loo akhriyo English asaga iska phonetic language ah. Marka waanadaasna waan ku soo kordhinay insha Allah dadaal aan sameyn insha Allah ku soo biira videogan xaqiiqo siiya mahadsanidin.